ما يقال عند دخول الخلاء. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. halkani waa masjidka Axyaa ulculuum oo ku yaala xaafadda Xamar Jadiid ee degmada Warta Nabadda. masjidka ayaa habeennimadii xalay waxaa lagu qabtay tartan cilmiyeed u dhaxeeyay qaar ka mid ah ardayda daalibul cilmiga ah ee masjidka wax ka barata. tartan aqooneedkani oo lagu soo xirayay daraasadda masjidka ka socotay sanad waxbarasheedkani ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo 4 xalqadood oo loo qaybiyay ardayda. xalqooyinka ayaa kala ahaa xalqada Abubakar Sidiiq, xalqada Umar bin al-Khattab, xalqada Uthman bin Affan, xalqada Ali bin Abi Talib iyo xalqada Xasan bin Ali. waxayna ardaydu ku tartamayeen kitaabada kala ah Abi Shujaac, Ad-Durr al-Bahiyya iyo qaar ka mid ah kutubta caqiidada Islaamka. waxaa xusid mudan in ardaydu dhammaan ay ka jawaabeen 25 su'aalood ee la weydiiyay. ما يقال عند دخول الخلاء. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اذكر نصاب الذهب والفضة. نساء الذهب 20 مثقال ونساء الفضة 100 درهم. اذكر أركان الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. اذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. حسجكتا أولاد رسولك صلى الله عليه وسلم. قاسم زينب فاطمة أم كلثوم عبد الله إبراهيم رقية. عرف الزكاة. هي اسم للقدر المخرج عن المال وعن البدن. حسجكتا صفاتك إلهي سبحانه وتعالى واجبي. الصفات الواجبة لله تعالى 20 صفة، وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث، قيامه بنفسه والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، كونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. gabagabadii tartanka ayaa waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah mashaayikhdii lagu casuumay tartanka, waxayna ammaaneen dadaalka wadajirka ay sameeyeen mashaayikhda iyo ardayda masjidka, iyagoo si gaar ah ula dardaarmay ardayda. shabaabka dhalinyarada meeshaan joogtaa waxayna geliyeen qalbigeenna, waxay geliyeen horukac iyo horumar ayayna geliyeen, waayo intaasoo darsi oo kor laga xifdisan yahay ragga sidatan ugu didaalay waxay mudan yihiin caaway qof walba wixii qalbigiisa uu ku qabto in lagu amaalmariyo uu mudan yahay. laakiin waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa qof walba waxa uu doonayo qalbigiisa uu ku rabo khayra ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu waafajiyo. waxaana leeyahay didaalka wadaan sii wada. waalidiinta iyo dadka ilmaha dhalan waxaan leeyahay caaway waxaa ku faraxdaan waad haysataan, ha joojinina didaalka. shiikha duruustan bixiyana waxaan leeyahay iyo kalkaaliyaashiisa waxaan leeyahay caawa waxaa ku faraxdaan waa haysataane ha joojinina leeyahay insha allah haddii ilaahay horay u socda gadaal ha u socnina insha allah haddii ilaahay waxa weeye dadka waalidka ah iyo waxa weeye dhalinyarada ka soo qayb gashay oo waxa weeye caawi meeshan wax lagu baray iyo mudarrisiinta wax barayay iyo mashaayikh waaweyn oo ka soo qayb gashay caawa ayagoo dhanba caawa sida sheekhu uu noo sheegay waxay arkeen waxay ku farxi karaan. su'aalihii la weydiiyey ardada dhammaantood su'aaluhu inta way ka badnaayeen, warqado fara badan ay ahaayeen, laakiin markii salaadii ay soo dhawaataa la iska soo gaabiyey ardada waxaa ka muuqatay nin kasta inuu kitaabkii iyo casharadii uu soo diyaarin jiray. marka waxaan leenahay dhammaan waalidiinta iyo dadka deegaanka xaafadda dadaalkiina laba jibaara. runtii sida culimmadu ay sheegeen xusn niyatii ay ka warrameen ilaahay ha noo qabto. didaal iyo soo badnaanay horta waa ilaahay aan ka rajaynaynaa ilaahay inuu na siiyo, laakiin xaafaddan fariiqama badno ma dhowa. soo runtii meelaha qaarkood marka la tago dhalinyarada ka maqan haddii la ogaan lahaa waa wax yaab leh, yani waa aad u badan yihiin. marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala wanaagga allah nagu soo duwo, khayrkana oo inta haysta allah u ziyaadiyo, inta ka maqanna ilaahay subxaana wa tacaala ku soo hanuuniyo.
culamada wacdiga iyo ducada khayrka noo soo jeedinayaan ugu filan ilaahayna waa qaar ka mid ah ardaydii daalibul cilmiga ah ee tartanka ka qayb galay ayaan la hadalnay iyagoo muujiya dareenkooda ku aadan munaasabadda. bismillaah magacaygu waa Cumar Cabdi Axmed waxaan ka mid ahay ardayda ka barata masaajidkan Axyaa Ulculuum. caawa waxaa la soo gabagabeyey duruustii noo socotay sanadkan. waxaa caawa noola qabtay tartan aqooneed lagu soo gabagabeynayay duruusta. waxaan u mahadcelinayaa mashaayiqdii cilmiga noo akhrisay iyo waxaan kaloo u mahadcelinayaa mashaayiqdii ka soo qayb gashay tartan aqooneedkan. anigu magacaygu yahay Axmed Maxamed Tahliil oo ka baranayay duruusaha cilmiga ee ka socda masaajidka Axyaa Ulculuum ee haatan sanadkan oo gabagabada noo yahay maanta halkan tartan cajiib ku qaadanay anaga iyo ardaydeena walaalaheena kale. waxaa inta ugu mahadcelinayaa mashaayiqda masaajidka iyo culimaa diinka iyo ka soo qaybgalayaasha. waxaan sanadkan soo akhrisaday kitaabo dhowr waxaa ka mid ah Safiina iyo 40 dhammaan kitaabaha waxaa u qayb galay tartanka ilaa ajir iyo xasanaadaas iyo mashaayiqdeena. masjidka Axyaa Ulculuum oo ay wax ka bartaan in ka badan 70 arday ayaa sanad walba xilligan oo kale lagu qabtaa tartan aqooneedkan oo kale wuxuuna tartankani noqonayaa kii saddexaad ee la qabto tan iyo bilowgiisii. Cabdullaahi Xasan, shabakada caalamiga Almutaxaabuuna Filaahi, magaalada Muqdisho.